wafdigan uu hogaaminayay safiirka dawladda Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya David Counser ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo si diiran ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta ugu sareysa maamul goboleedka Jubbaland oo uu horkacayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe madaxweyne ku-xigeenka koowaad iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland soo dhaweynta wafdigan uu hogaaminayay safiirka dawladda Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya kadib ayaa waxay wafdiga iyo sidoo kale mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland ay wada qaateen kulamo looga hadlayay arrimaha dhinaca ammaanka iyo sidoo kale horumarinta maamulka Jubbaland kulanka oo ay qayb ka ahaayeen madax ka socotay hay'adaha midowga Yurub deeqda u soo marsiiso maamulka Jubbaland iyo taliyaha ciidamada nabad sugidda qaranka Soomaaliya ayaa inta badan ahaa mid looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa dhinaca dhismaha ciidamada iyo sidoo kale xarumo cusub oo loo dhisi doono hay'adda nabad sugidda maamulka Jubbaland waxaana sidoo kale kamid ahaa in si weyn looga qayb qaato arrimaha dhinaca ammaanka iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha marka ay kulamadaasi soo dhamaadeen kadib ayaa waxa warbaahinta la hadlay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo ka warbixinayo kulamadii kala duwanaa ee ay la qaateen madaxdii soo gaartay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose sida arkayseen maanta waxay noo yimid wafti uu hogaaminayo safiirka dawladda Ingiriiska oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya David Counser oo ay la socdaan hay'adaha ay deeqda noo soo marisay dawladda Ingiriiska iyo midowga Yurub sida hay'adda SSF Somali Stability Fund iyo hay'adda la David oo xagga booliska naga caawiso waxay noogu yimaadeen booqasho markii ugu horeysay safiirka dawladda Ingiriiska uu Kismaayo soo booqdo waxaan lahayn kulamo kala gedisan waxaa kaloo ka soo qayb galay taliyaha hay'adda nabad sugidda Soomaaliya oo asna shalay horudhac u yimid qaybna ka ahaa booqashada Kismaayo shirkaas oo wajiyo badan lahaa waxaa la dhagax dhigay xarun loo dhisay hay'adda jiisa hay'adda sirdoonka ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaa laga wada hadlay sida capacity building loogu sameyn lahaa hay'adda sirdoonka xagga tababarada iyo xagga qalabkaba waxaa xigoo laga wada hadlay shir ay si khaas ah madaxweynaha ula galeen oo asagana ahaa bilateral meeting shir laba dhinaca oo iskaashiga dawladda Ingiriiska iyo dawladda Soomaaliya khaasatan dowlad goboleedka Jubbaland ku saabsanaa waxaa xigay shirka hadda soo gabagaboobay oo ayagana ay la yeesheen wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga wasaaradda maaliyadda wasaaradda qorsheynta iskaashiga iyo xafiiska wasiir dawlaha xafiiska madaxtooyada anigana aan shir gudoominayay dhammaan waxa laga wada hadlayay waxay ahayd laba qaybood qaybta horumarinta iyo qaybta ammaanka oo ay iskugu jireen waftigii inoo yimid si kastaba ha ahaatee safiirka dawladda Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya David Counser ayaa noqonaya safarkii ugu horeysay ee uu ku soo gaaray magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose tan iyo intii loo magacaabay xilka safiirnimada dawladda Ingiriiska ee dalka Soomaaliya Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga caalamiga Saab magaalada Kismaayo.